samboor ma qabtaa ama cunugaada ma wadadid aan dareemayn iska socdaan allergies cunuga ma dhibaa qufac habeenkii joogta ama leeyahay ama cunugaada neef ma qaba ama adiga sida lamidka iyo familka allergiga ma dhibaa noocaas maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax ka mid ah waxyaalaha badanaa allergiga lagu qaado oo qarsoon oo badanaa dadka aysan ogeyn arrintaas waxyaalaha ugu saameyn weyna ka mid ah iyo tallaabooyinkii aad samayn lahayd oo waxaa iskaga yarayn lahayd haddii uu maaragtay uu dhibkaa kuu keeno waxaan maanta ka hadlayno waa wax siigada aadan arkaynin oo noolaha aadan arkaynin oo isha caadiga ay qabanaynin badanana gurigaada inuu iskaga jira laga yaabo meelaha badanaa uu ku jiro waxaa ka mid ah ama uu jecel yahay inuu galo sariirta furaashka gogosha bustayaasha iyo go-yaasha isticmaashaan jikada gaariga dad qabta gaariga iyo siidiisa guriga iyo siigiisa wixii la midka arrinta maanta aan ka hadlayno waa wax luqadda caafimaadka loo yaqaano dustmite dustmite-ka maxay tahay waxaan la arkaynin badanaana siigada la socdo waayo yani busta iyo boorkii wixii la midkaa la socdo waayo marka dustmite-kani dadka qaarkood ayaa allergy ku ah kulli ruux walba maaha laakiin allergy ku yahay haddii marka aad dareensan tahay adiga markii bus aad kugu dhacda ama wixii meelahaas oo kale aad socotaba inay ku dhibaayo gaariga hadday si isku shido oo kale ay ku dhibayso iyo gurigii wixii la midka ah probably waxaad u baahan tahay in baaritaan lagu sameeyo oo la fiiriyo in dustmite-ka allergy ku tahay in kale oo allergy test lagu sameeyo haddii aad si awoodi karin ama meel laga baari kara aad joogin aad si ka shakisan tahay aad si ogsoon tahay inay busta saas ku dhigto then waxaad imaatay meesha shaxdayd waxaan maanta insha allah ka hadlaynaa sidii waxay aad samayn lahayd oo qaabkii aad iskaga yaran lahayd allergigaas insha allah waxaad u baahan tahay in gooyaashaada furaashka iyo wixii la midka ah iyo gogosha khaasatan aad huwato in week ama dhowrkii weekba mar aad u dhaqdo si haddii waxaan uu ku jiro ugu yaraado si busta oo guriga ku jirta inaad yaraysaad u baahan tahay waxa haddii aad awoodi karto ama meel vacuum clean lagu samayn karo dhowrkii week marka la joogo vacuum clean inaad guriga ku samayso guriga hadduu isku dhex qasan yahay oo meelo badan oo busta ay fadhiisata ay leedahay iyada naftigeeda inaad nadiifiso ood kala hagaajiso isku hagaajisay u baahan tahay haddii bahashan dustmite-ka waxay jeceshahay meelaha humidka ama biyaha leh haddii marka gurigaada meel oo dariishadaha ay xiran yihiin inaad dariishadaha furata u baahan tahay si ay ugu soo gasho waxaa kaloo u baahan tahay in tuubooyinkaada hadday leakage leeyihiin oo biyo daadinayaan inaad iska hagaajiso iyo wixii la midkaa saan sheegayna haddii markaasi allergy ama samboor ay kuu keentaa in markaasi aad iska daaweyso meeshaas kana aad samayso ilaa xadaso marar badan waxaa dhacdaa carruur ii keeno oo xaafadaha qaarkood ay degan yihiin ayna fiicnayn oo mar walba bustaas ay jirto highway aad degan tahay dabaqa koowaad ama labaad ama xaafada aad degan tahay aad loo dhisay siibada iyo busta ay aad u badan tahay oo mararka qaarkood ay awoodi karaan aan kula talina inay meel xaafadaha ka degan oo at least aan bustan badan aan lahayn ay degaan markii ay meel kale ay aadaan oo bedelasho sameeyaan fiicnaanayo marka tallaabooyinkaas ayaa ka mid ah tallaabooyinka gurigaada problemka gurigaada ka jira aad dareensanayn aad ula tacaali karto oo aad allergigana ilmaha ama adiga iyo familkaba aad oga yarayn karto dustmite-kaas ama siigada la socdo bahalaha siigada la socdo waa anigoo Dr. Cabdiqaadir dhakhtar caruur wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu